taasi gobol waxaa ku soo duulay Soomaali kale gobolada kale ugu soo duushay si ay u gumeystaan ay u dhacaan ay u qaataan hantada talabo Shabeellaha ay ku noolaadaan ilaa ay xalliga dawladda leeyahay ayagoo wadadaas raacay cadawga maanta jira ayagoo wadadaas raacayo waxay fahmeen ama ay dareensan yihiin 25 sano dad aan dalkan u dhalaanayn baa ku dhuumaalaysanayay ayaa dalka dhacayay dadkana laynay maamushta ayaa horbooda labadan gobol si gaar in loo ilaaliyo waan qasanayaa taas aydan dhaqaale xageedu sidaas ayaa ugu gudbaya waxaan kaloo rabaa siyaasadda ka jirta khaasatan labadaas gobol ka sheekaynayo waa siyaasad ka madax bannaan Soomaalida waa siyaasad qaaban ee loo hayaan adduunka daafiisa kala duwan ee bannaanka isla markaas ayadoo burboodayaan niman aan u dhalanin gobolka Shabeellaha Hoose ay hor ordayaan waxaan codsanaynaa siyaasaddaas in hal yiraahdaa laga hortago si siman aan ugu hortagno aan isku ifino aan weydino gobolka Shabeellaha Hoose ee siyaasadda adka leedahay waxay tahay in la weydiiyo dadkaas khaasatan dadka hogaaminaya horboodaaya NGO-yada ee ka howlgala Shabeellaha Hoose Jubbada dadku markay dalagyadu u soo go'aan la soo ordaayo in malka qabto wax codsanaynaa waxaan kaloo codsanayaa Shabeellaha Hoose Jubbada Hoose NGO ayaa ka howlgala NGO-yadaas waxaa hor ordahaya dadka yimiday gobolada kale oo Soomaaliya waxaan rabaa NGO-yadaas dadka leh inaan ugu diro fariimo cad aan gaarsiiyo Jubbada Hoose Shabeellaha Hoose waxaa jooga dad aqoon-yahan ah barofesoriyaal ah ilaahay cilmi siiyay aqoon hegta leh cid kasto NGO wadata cid kasto gobol Shabeellaha Hoose Jubbada Hoose ka doonaysa inay ku maxay ka xamaar ka shaqaysato waxaan leeyahay la soo xiriira dadka u dhashtay goboladaas ay labadaas gobol aqoon-yahanadooda la soo xiriira waxay joogan dalka dhaxdiisa waxay joogan dibad ayay joogan ma aqbalayno dad gobol kale laga keenay inay gobolkan ka shaqaystaan professoradii aqoon-yahanadii ee gobolada u dhashtayni inay maxal yiraahdaa ay meelaha wari socdaan ay shaqaysi waayaan waxaan aqbalayno ma ahayn waxay leenahay dadka NGO-yada wata ka keenaya adduunyada daafeeda kala duwan ee umadaas inay ugu gargaaraan u socdaan war waxaad soo dhiibtaan lama keeno labadan gobol lama keeno dadku gobolada ay soo jeedaan oo soo dursanaysan goboladooda ay ku cishadaan ay geystaan halka waxa soo gaara wax yar oo